cabitaan waxaa yaala caano muus, caano chocolate, caano timir, cocktail, qara, babaay, cambe, liin. casho fudud waxaa taala shawarma, fish burger, chicken burger. casho fuul waxaa taala baasto, bariis, kalluun, chicken steak, daafi, suqaar. أنا ما أحس قراها قرا قرا شكر لهاي يجرا قبوين أنا ما أحب عنوس أنا عانت بريك أوكي عانت تمر عانت موس قرا أيوة إبراهيم داب waxaan ku dhashay waddanka Australia waxaan hadda ka shaqeeyaa kulan oo waan ku faraxsanahay 100% waan ku ganacsanahay gaalkacyo inaan anoo joogo inaan ku sii shaqeysto waxaan u arkaa wax fiican inta ugu badan dadka waxay ku badan yihiin casarkii soo toos oo soo shaati cadee maalin dheeri waxaan ku xisaabtamaa habeenkii anoo wax jeebkayga ku jira inaan ku seexdo nolosha qurbaha nolosha xaggan waxay ku kala duwan yihiin xagga waddan gaalaa weeye waddankaagi ma aha dadkaagi ma joogaan alone iyo depression iyo stress baa qof ku dhacaya marka xaggaa jooga halkan laakiinsi free baa tahay dadkaagi baa jooga ehelkaagi baa jooga familkaagi baa jooga marna baahanaan maysid meeshan meel wanaagsan weeye waddankayga weeye waa jeclahay waan ku qanacsanahay dhalinyarada waxaan ku dhehi lahaa meesha ka kaca oo shaqaysta adeer macaana dhididkaaga intaa shaxaad iyo wax kale aan la aqoon raadsan lahayn dhalinyarada facayga xagga ma shaqeeyaan oo waxay ku jiraan filin iyo waxa ku jira ganacsignimo iyo waxaan la aqoon bay ka daba ordayaan dhalinyarada xaggaana markaa u imidna waxa weeye dad wada fadhiyo far inay qaadaan rabin guddigood waxaa ku wada ku filan dibad iyo xaggaa markaa dibadda aada waa shaqaysanaya iyo dibadda maana u dhalan waddankan baa u dhashay waddankan waa ciideyda dadkayga ehelkayga tolkayga meeshay wada ku nool yihiin heerna inaan gaarsiiyo oo aan wax soo saar aniga shakhsiyan aniga i gaar ah inaan ku sameeyo waa hamigayga haddii ilaahaydno waxaan kaloo leeyahay dhalinyarada inay meesha ka kacaan waa muhiim because waddan wuxuu ku noqdaa waa bulshadiisa hadday yihiin dad dowlad bas sugaya meelna ma aadayaan laakiinse ayaga hadday isbilaabeen inay ismaamulaan oo wax soo saar ayaga iska keenaan markaasaa insha allah wax u hagaagayaan tan waxay dhiirigelinaysaa oo ay garab siinaysaa dhalinyarada qurbaha ku sugan in ay fursad u helaan ay arkaan inay waddankooda ka shaqaysan karaan dhalinyarada gudahana waxaan leeyahay waxaa bannaan fursadeed ku soo dhaweyn lahaydeen walaalihiin intii 20 sano gudaha aad ku dhibtooteen dagaalada iyo dhibta ay socotay iyaguna qurbaha ku dhibtoonayay oo la kulmeeyay cunsuriyad iyo dalkooda inaysan lahayn iyo dhibaatooyin kale oo xagga bini'aadantinimada iyo xagga maskaxiyan intaba marka mar walba waxaan rajaynayaa bahda warbaahinta in ay aragti gaar ah ay u yeelato dhacdooyinka quruxda badan ee hal abuur kale ee horumar kale ee bulshada dhexdeeda ku jira ee kaliya aan maaragtay focus kala saarin tabinta wararka iyo arrimaha la xiriira dhiilooyinka ma garanaysaa xanafta leh waan kaga mahadcelinayaa bahdina halmaal dadaalkaad ugu jirtaan inaad maaragtay soo bandhigtaan bulshada dhexdeeda waxyaabaha ku qarsoon dhalinyarada waxaan leeyahay shaqadu ceeb maaha shaqadu sharaf weeye haddaysan dhalinyaradu iyagu shaqaysan oo soo noloshooda dhacsan waxba noqon mayso marka hadalkayga gabagabada dhalinyarada waxaan kula talin lahaa qurbaha in haddaad ku fikiraysaan Ibrahim baa tusaale idima waa role model weeye Ibrahim isaga tusaale idin ku filan inaad waddankiina ka shaqaysan kartaan shaqana taalo tusaale idin ku yahay wuxuu tusaale idin ku yahay qurba inuusan wax sharaf ah lahayn qofku markuu tago baa waxa ku dhacaya stress iyo dhib iyo cidlo iyo rafaad iyo nolol adag iyo wax walba inuu ka fakaro kiradii inuu ka fakaro korontadii inuu wax walba ka fakaro waxaan maanta ka fakareen xorriyad u haysatid meesha rabtay xanas fariintaas baan farayaa Ibrahim wuxuu noo noqon doonaa role model insha Allah Ibrahim adigana xaflad weyn baa kugu casuumi doonaa abaalmarin loo kugu siin doonaa shaqada haysid iyo tusaalaha u tahay dhalinyarada